Assalaamu calaykum saaxiibayaal daawadayaal ku soo dhowaada barnaamij kaloo cusub oo idiin soo tabiyo kanaalka Aqoon TV. Magacaygu waa Cabdifataax Abduqaadir. Weligaa miyaad aragtay qof bini'aadan ah oo geed dheer iyo geed gaabanba u koray, hanti badanna ku bixiyey siduu isugu ekaysiin lahaa xayawaan uu jecel yahay? Haddaba qisadan oo ah qiso cajiiba intaynan u gudagelin, fadlan sheer garey, hana ilaawin inaad furato beelka si ay kugu soo dhacaan barnaamijyada kuwan xiga. Dennis Evner waa muwaadin Amerikaan oo ka soo jeeda gobolka Michigan ee dalka Mareykanka. Ninkan ayaa yaraantiisii waxa uu aad u jeclaa xayawaanka loo yaqaano tiger-ka ama shabeelka. Haddaba ninkan oo markii hore ka tirsanaa ciidamada Mareykanka ayaa markii uu ka ruqsaystay waxa uu go'aansaday in uu geed dheer iyo geed gaabanba u koro, qarash badanna uu ku bixiyo sidii uu isugu ekaysiin lahaa shabeel. Ninkan ayaa wuxuu isku sameeyey 14 operation ama qalliin, taasoo uu uga gol lahaa mar-uun inuu isu ekaysiiyo xayawaankaas uu aadka u jeclaa. Qalliinada 14ka ee ninkan lagu sameeyey oo ay ku kacday lacag gaaraysa 200,000 oo dollarka Mareykanka ah ayaa ninkan waxa looga sameeyey faruuryaha si loogu ekaysiiyo shabeel. Waxaa kaloo loo sameeyey shaarbo shabeel, korkiisa oo laga wada dhigay kor u eg sida shabeelka iyo miciyihii. Ninkan ayaa waraysigiisii ugu dambeeyay ee uu bixiyey waxa uu sheegay in haddii awoodda ay u saamaxdo oo uu jeclaan lahaa in dhowr kale oo qalliin uu galo, qalliinadaas oo kale ah dhago iyo in loo sameeyo sayn. Waxyaalaha la yaab kale ayaa waxaa ka mid ah in ninkan uu gurigiisa ku xardhay sawirrada shabeelka, gogashiisa iyo dharkiisana ay yihiin midabka shabeelka. Haddaba mar la weydiiyey cuntooyinka uu jecel yahay inuu cuno, waxa uu sheegay in uu cuno hilibka oo keliya. Ninkan ayaa marka uu yimaado meelaha babliga ah oo ay dadku ku badan yihiin, ay dadku aad ula yaabaan una fiiriyaan. Carruurta yaryarna waxaaba laga yaabaa mararka qaarkood inay ka argagaxaan. Haddaba ninkan ayaa mar dambe oo ay xeere iyo fandhaal kala dhaceen ogaaday in uusan noqon karin marnaba shabeel, dibna uusan u noqon karin oo uu jirkiisii uu jarjaray uusan dib u soo celin karin. Taas waxay kaliftay in bishii November 2012 ninkan uu isdilo, taasoo saxaafadda dalka Mareykanka ay aad uga hadashay. Haddaba daawada wixii fikrad ah fadlan noogu soo sheeg qaybta comments-ka.